dhinacaas iyo gaalkacyana haddii aynu aadno oo ku taala bartamaha Soomaaliya waxaa halka gaaray Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ah jabhadda ONLF waxaana magaaladaasi ay tahay magaaladii ay laga qabtay ka hor inta aan loo gacan gelin dawladda Ethiopia waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan inuu gaalkacyo dib ugu soo noqdo isagoo xor ah oo aanay jirin cid uu ka baqayo warbixin arrinta ku saabsan waxa ay noo soo diray Axmed Khaliif Geedi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay isla markaana xaflad balaaran loogu qabtay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo horay looga qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xafladda waxaa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Mudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug Xirsi Yuusuf Barre iyo qaybaha bulshada ayaa ka codsaday Cabdikariin Sheekh Muuse in uu ka raali noqdo falkii hore uga dhacay gaalkacyo waxaan leenahay ku soo dhawow sidaan ognahay gaalkacyo waa meeshii laga helay haddana waxaa la rabaa oo aan meesha u joognaa inaanu muujinno siyaasadda iyo shacabku waxay ku kala gidsan yihiin waxaan rabnaa inaan caddayno shacabku sida ay ku jecel yihiin Cabdikariin ilaa maanta meel la kala geeya dadkii la waayay waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 4 maalmood baa la mudaharaadayay reer gaalkacyo markii la yidhi Cabdikariin waa la gudbiyey sidaa waqtigii aniga habeenkii la gudbinayay Cabdikariin waxay la soo xirinayay 2 senator Cabdi Cawaale Qaybdiin iyo Korneel Axmed Xaashi oo senator ah labadoodu waxay riixayeen in xamar ninka aan keeno dadaalkaas aan wax ka galnay xamar sidii laga filayay nasiibtaro oo noqon weyday laakiin waxaan hubaa inuu nin nasiib badan yahay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan waxa uu sheegay in Cabdikariin Sheekh Muuse uu yahay muwaadin halgamaa ah isla markaasina bulshada gaalkacyo ay si aad uga xumaadeen markii laga qabtay gaalkacyo مسؤولك Cabdikariin wuxuu ka mid ahaa mas'uulkii soo halgamay muddada dheer asagoo marna ahaa qaranka Soomaaliya ku soo halgamay si loo helo ummadda Soomaaliyeed degan waqtigii dheeraa aad arkaysaan oo soo qaatay oo ku soo dadaalayay waxaa dhacday nasiib daro in magaalada gaalkacyo laga qaaday ayagoo wax mas'uul ah oo ka warqabin wax maamul oo ka warqabin wax guurtii oo ka warqabin wax uqaala ay sanogeen in ciidamadii halkan joogo dowladda federaalka la soo amray inay qaadaan ayagoo aan matashi kala sameyn maamulada isla markaana ay geeyeen magaalada Muqdisho oo loo arkay xaaladda dalka Soomaaliya oo ah maamul goboleedka meeshii laga xukumayo ama dowlad goboleedka nasiib daro aragtida iyo shacbiga reer Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug aad baa loogu kala qaybsamay aaraa badan baa timid ugu dambeyn Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in hadda aysan jirin wax xumaan ah oo uu u qabo bulshada Galmudug gaar ahaan kuwa reer gaalkacyood waxaana dhinaca kale uu fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya cafiska adiga dalabteen waa mid Soomaali weyn iyo xaaladeeda ma aha mid gaalkacyo iyo Galmudug xuquuqda aan u qabay aan ma aha uma qabin xuquuqda waxaan u hayay kalgacayl iyo farxad waxaan ahay inay walaala oo Soomaalida oo maanta aan walaalanahay adana wax si gaar ah walaalnimo aan ugu laga sii dhaxaysa runtii arrimahaas oo waa arrin muhiim ah waxaan sii wadanayaa marka hawshaan hadda inta soo qorteen adii soo qorteen cashis iyo raaligelin Qalbi Dhagax intaas oo kale haddii ay soo qori lahaayeen nimankii madaxda ka ahaa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intaas oo kale hadday soo qori lahaayeen oo halka Qalbi Dhagax ku qoran tahay shacbiga Soomaaliyeed ay raayeen ama sidiisa u geerin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed oo dhan raalli bay ka ahaan lahayd idinkuna raalli baad ka ahaan lahaydeen anna waxaan noqon lahaa qofka ugu horreeyay ayaga la shaqeeya gacan ku siiya xilkii iyo waajibaadkii shacbiga Soomaaliyeed waan dacweyn karay anigoo ka duulaya go'aankii baarlamaanka artikel sharci weeye oo ka dacweynaya dalku hadduu maxkamadda dastuuriga leeyahay ka dacweynaya hadduusan lahayna maxkamada caalamiga la tegaya waan dacweyn karay idinka dartiida kalgacaylkiina ayaan u daayay inaan la dagaalamo faraha ugu qaado
23 Agoosto 2017 xilli habeena ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya qaybta Galmudug ay hotel ku yaala Gaalkacyo kala baxeen Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax waxaana markii dambe loo gacan galiyay dowladda Itoobiya. Axmed Khaliif Geedi, RTN, Gaalkacyo. kaasina wuxuu ahaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ka tirsan jabhadda ONLF oo socdaal ku maraya gobolada Puntland iyo Galmudug.